waxaa diinta islaam xarintay oo naga reeban dastuurkeennana aan ku sheegnay wax kasta ku hor imaanaya diinta inuu maaragtay shaqaynaynin marka inaan idhaahdo khamro iyo alkolo iyo hadow inay doofaarka lagu soo daro waa laga ganacsan karaa waa wax xaaraan ah oo aan ogolaanayn shareecada islaamka sharciyanna baarlamaanka kaa in la horkeenaado yani siday kusoo dhaafti garan maayay golaha wasiirada ayaan kasoo horjeednaa mana yani suurtagal noqon karto marka in hadda laga xadfiyo ayaa la qabaa sababtoo ah khamrada diintu ama xadiidku wuxuu leeyahay ninka gadaya iyo kan qaadaya iyo kan ka ganacsanaya iyo kan cabaya waxaasoo dhan waa isku dembi marka canshuur laga soo qaado khamro in aan u malaynaynin masaajid looga dhisi doono ummadda soomaaliyeed annagana mushaar qaadan doonin midda kale shuruucda ayaa kuu soo hartay shuruucda maxaa annaga 60kii nagu xiray madana guddoomiye golo shacbi oo baarlamaan oo sharci dejin ayaan nahay waxaa aad runtii arin u khaldana aan ku soo jirnay muddo dheer in la yidhaahdo wax kasta waxaa loo noqonayaa ama reference u noqonaya haddiiba sharci gadaal marjac la raadinayo 60kii shuruucda 60kii badi waxaan ognaa inuu talyaanigii uu dejiyey oo fajiistadii uu ka soo jeeda ma garatay 21 sano oo dowlad soomaaliyeed ee waddanka ka talinaysay ma yani kacaanka naceebkiisa dartiisa maanan reference u qaadanaynin shuruucyo ka qurux badan oo kuwa 60kii ayaa ku jiro shuruucda la dejinayo waddanka annaga dowlad la tacaamulaysa ee wax dowlad kale ku wareejinayse ma aha in la fiiriyo waxyaabo annaga aanan ogeyn oo ay hadda aan ku qanacsanayn aniga xildhibaan ahaan in laga boodo marka waxaan leeyahay waa in shuruucdii waddanka la dejiyey hala yidhahdo aan 60kii la taabadgaraysanayo iska dayno oo intii aan gobonnimo aan qaadanay oo dowladdaan soo ahayn wixii sharci jiray oo dhan aan wada tixgelinno laakinna uqamish atruk hada wa akhtaaru hada wax aan maartay ee runtii u adag karna ma discrimination of law baa meesha yaalla ogartaa arrintaas waa inaan ka gudubnaa maxaa kaloo kuu soo haray tan kale waxa waaye waxay isticmaaleen saaxiibadayda wasaaradda maaliyadda canshuuraha furdooyinka dhinaca kalena golaha xukuumadda wasaarad la yidhaahdo dekedaha ayay qabaan aniga guddiga dekedaha ayaa ka tirsanahay guddiga furdooyinkana haddana ayaan u baahnaanaynaa haddii magacaan bedelayno kii dekedaha hal style inay ku socoto xukuumadda waa inay tiraahdo canshuuraha dekedaha iyo wasaaradda dekedaha ama haddii kale furdooyin iyo dekedaha ummadda way ku wareeraysaa waxaa lagu kala jeedaa bay imaanaysaa